maaweelo iyo madadaalo oo aan kaga hadlayno wararkan haddii jaraala maartay isqaafsan ay saxaafad soo debiso mid khaldan iyo mid saxan mid baan loo abeeyay warkan waa war ka duwan wararkii hore waana war qosol ku jiro iyo riwaayado oo aan idinku talagalay daawadayaasha ama taageerayaashayda ku xidhan YouTube-ka Mustafa Balaasa channel haddaba waxaan doonayaa maalin walba inaan wixii fikrada taageerayaasha amaba daawadayaasha barnaamijyadan soo geliyo YouTube-ka daawada raallida ku inaan soo geliyo marka haddaba horta war baan takhriya marka hore بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waa channelka Mustafa Balaasa channel waa kala socotaan riwaayado iyo mujaajiliin warka madaxdiisii xuduudka u dhaxeeya bisadii jiir ayaa waxa kale laga soo sheegayaa dagaalo lagu hootay kadib markii ay halkaasi ka baxeen ciidamadii nabad ilaalinta u joogay bisadii jiir oo halkaasi ku sugnaa muddo 8 sanadooda dagaalka ayaa bilowday kadib markii ay jiirku is yiraahdeen soo booqda ama waxooga haruuray kaga tageen soo eega xiriye ay ka baxeen ciidamada nabad ilaalinta haddaba bisadaha iyaguna is yiraahdo ka soo qaraabta xiriyihii laga guuray ayaa wax iska hor imaad halkaas ku dhex maray guutooyin jiira iyo kuldad bisadaha oo biyaha bagaajoonaysa hasaa ahaatee waxay dabada u qabteen oo jiirkii halkaasi marayay oo iska taxtaxaashay oo islaa waxooga haruurada meelaha ka soo qabso ayaa waxay ka dhigeen qaad gid adugdaha sheegay halkaas waxaa la sheegay in ku qorwaayeen 1500 oo jiira in halkaas lagu kala goostay halka bisadana qasaarahood uu gaaxay hal bisad uu soo gaaray dhaawac fudud qayeen hadlay jiirka ayaa sheegay inay bisadu u geysteen xasuuq xayawaan kaasuna ay tahay buuri in lagu xisaabtamo oo maxkamad lagu soo taago haddii kala buuri halkaas ay noqon doonto buuri in xoog xawaan ku sugaarsado wariyaha naga soo warramay aaga jiirka ayaa sheegay in aagaas ay ka taagan tahay cabsi ballaaran oo gobolada xiga dhinaca bisadaha lagaba baxay gabi ahaantood bay haawanayaan buuri magaalooyinka afayeen soo hadlay bisadaha ayaa sheegay inuu jiirku waday dhul ballaarsi oo uu ku doonayay gobolada aan leenahay taasuna ay keentay inuu bisadu inay difaacato goboladeeda waa siday hadalka u dhigeen guddiga amniga habarduga oo shir degdeg isugu yimi ayaa arrintan waxay guudka ka saareen libaaxa oo gudoomiyaha xayawaanka oo ay sheegeen inuu suuqa amarka bixiye laga saaray ciidamada nabad ilaalinta halkaasi asaatee cagabaruhu hadii libaaxa ayaa sheegay in arrintaas uu tahay mid kutrikuteena oo sharafta libaaxa lagu dhimayo shan madaxeedka qaaradda Asia ayaa waxa hareeyay isku dhac lama filaan kadib markii uu wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Shin Bin-shin uu shukaansaday si degdeg ah shukaansaday ma wala sheekaystay marwada koobaad ee waddanka Nepal oo madaxweynaha la socotay Shin Bin-shin ayaa waxa uu mooday gabadhan ay tahay gabadh isxambaar oo iskala socotay waxa saacadii gabadho aan gabadho miyara oo aad u qurux badan ayaa wuxuu wasiirku halkaas kaga bilaabay come here I am love I am single welcome taasoo noqonaysa waa mujaclay kale igu soo dhawo marwada oo arrinkaasi ka xanaaqday oo aragtay madaxweynihii qabay oo hoosta ka eegaya ayaa waxay dabada u qabatay boorsadii ay sidatay wasiirka Shin Bin-shin halkaas waxa ka bilaabmay dagaal culus oo halkaasi la isugu horyimi oo dhinaca afka iyo gacanta oo joogta halka ay wari madaxweyniyaalkina siinaha oo ka mid yahay madaxweynaha George oo halkaas ka xanaaqay oo ku tilmaamay arrinkaasi mid xashnimo laguna soo taagan maxkamadu madaxweynaha George hadlay ayaa sheegay oo yiri taasu marbay aniga ay u dhici gaadhay labada wadan ee Kuuriyada Waqooyi iyo Nepal ayaa waxay sababtay in safaaradii kala qaataan waa shukaansigaasi hasahaatee waxa dhacday kadib markii uu madaxweynaha Japan oo isagu ahaa waddankiisa gurigiisa ka dhacay shirku ayaa wuxuu galay dhexdhexaadin badan iyo soo jiida saacad oo suurtagal weeyay waxa uu yiri Shin Bin-shin waxa siinaya inta Japanese oo quruxda badan ee dayarta maadaama ay yihiin waxa iska dhawaayay midnimada asahaatee madaxweynaha Nepal oo isagu ka goosqarinay gabadhana ka dambeeya ayaa wuxuu ku tilmaamay isagoo gabadhiisa raali gelinaya inuu wasiirkaas uu sameeyay waxaan loo qaadan karin markii uu uga yeedhay safiirkiisa joogay magaalada Seoul
halka madaxweynaha kooriyada waqooyi uu yeeray wariyiga amaba safiirkii ka joogay waddanka Nepal hadda waa hinaasiya ka waran madaxweynaha kaloo hinaasiinaya iyaguna sheegarkaas inay tahay mid waxashnima oo looga baahnay arrimaha diblomaasiyadda madaxweynaha kooriyada waqooyi hadlay ayaa yidhi madaxweynaha Nepal islaantiisa intuu telefoon kusoo shuuxo shaqo ka keenay waa su'aal madaxweynaha Shiinaha ayaa waxa uu raali gelin ka bixiyay in 17 jir oo isag jab ugu geysatay boqor ku xigeenka imaaradda Dubai oo booqanayay waddanka China madaxweynaha Hu Jintao ayaa sheegay in arrintaas uu hoos u dhac ku keeni karto firfircoonidii iyo dadaalkii badnaa ee ka dhexeeyay imaaradda Dubai iyo waddanka China hase ahaatee guddiga sharaf ilaalinta ee waddanka Shiinaha ayaa sheegay inay yartu ahayd mid safradoonaysa oo ay soo qabsanaysay qorrato ka dhacday qorratadiina ay kontay taashku xidhnaa boqorku kadibna ay taasuna keentay in la istaanto oo halkaasi ku haysa jiro boqorkii weeyaan wadamada carabta ayaa waxay soo dhaweeyeen warka ka soo yidhi guddiga sharaf ilaalinta ee China oo ay ku tilmaameen inay tahay tallaabo horumar xagee tallaabo horumar ka tahay madaxweynihii dhammaan waddanka ayaa weysa jabay carabtii haddii marka la yidhahdo xataa Mustafa madaxweynihii imaaradku la dhacay لكن هسه رجالين يسولون ويعرض دوات لعك هيستو يقول بيجوا رجالين يرصيبه ها كوعض هل كان وربع وادي أي فرق بدينهن مدحوينها ما القبيل ولا شيء وطن كفلبين أيها وحقوق إذا تريها جودة بوليس كفلبين إنه بلالوش كقاطي محبوس لأن هذا بالأحمر ينام براي وجهان قد يجنسي ما القبيل كهيا يدي كم كان كرنا ما نافرحين كلابوي كسويري هردعي كسويري البوليس ويانا وحنا كلابو بينا تزم طبعا هنا العجز تا هنا نكون كاسي أو فرد يعجب جولين تبغى الله قمني وسيسرنا أي كلام عطو وانكفر كلابو لي حتى نرجع لها تصدي وحكستنا وعم بحنا لكن بولي وحنا كلابو نكيو كلبا شركة لو جيني وصغار صحت تصميم فرحين بولي ما دام هنا العقل العقل بولي وحنا ما تريسو ما هدي بولي إن أنت إذا هنا ما القبيل يهيلوا بدي وحصلني واسكال حساهاتي غريقان كودودي نينكا دينرتا اي انت كان هذا كله مر اخرن ايا شيء ان انا هرتو waxay ba mid sidaasi u buuran aqaan waxa ku dhamaaday warkii